السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikachi. maanta waxaan qaadanaynaa cashar la yiraahdo quotes ama xigashooyin. casharkani waa qaybtii labaad. sidoo kale qaybtii koowaad waxaad ka heli kartaa linkiga and description-ka inuu ku siin doono haddii la haydmo. casharka aan guda galno. Okay, quote koowaad ama xigashada koowaad waxaa la yiraahdaa you have to go to dance like there is nobody watching, laugh like you would never be heard, sing like there is nobody listening, and live like it is heaven on earth. William Baskerville yiraahdo wuxuu yiri you have to go to dance like waa inaad u ciyaartaa qobka ciyaarkii baa dansiga la yiraahdo qobka ciyaar. marka waa inaad u ciyaartaa like sida oo kale there is nobody watching, uusan qofna ku daawanan sida qofna uusan ku daawanayn oo kale waa inaad u ciyaartaa. laugh wax u jeclaataa like you would never be heard, inaan weligaa lagu dhaawacan waa inaad wax u jeclaataa. sing u heestaa like there is nobody listening, ana u heestaa si uusan qofna ku dhageysanin, macnaha inuusan qofna ku dhageysanin oo kale waa inaad u heestaa. and live waana inaad u noolataa like sida it is heaven on earth, oo dhulka ama carrada ama meesha aan ku noolnahay ay tahay jannadii. maxay tahay marka macnaha ay soo gudbinayso quote-kan ama xigashadani? yacni wuxuu ka wadaa wax walba oo nolosha aad samaynaysid ha fiirin dadka perspective-ka ama fikirka ay ka haystaan, ee waxaa fiirisaa war waxaan sax ma yihiin mana kugu habboon yihiin inaad samaysid. sidaa daraaddeed waxaa dadka ka soo qaadaa inaysan jooginba nooleynba. marka waa saas oo kale macnaha guud ee xigashada. sababtoo ah dadka ugu badan ee dunida guuldaraysta waxyaabaha ugu badan ee ku sababa guuldarrada waxaa ka mid ah inay fiiriyaan warsee dadka kale ku arkayaan, warsee hebel ku arkaya, muxuu hebel kaa dhahaya, dadka kale ku mashquulsan naftooda bay ilaaween. saa daraaddeed bay u guuldaraysteen. okay, xigashada labaad waxaa la yidhahdaa nin waxaa iska la yidhahdaa Malcolm. marka wuxuu leeyahay education waxbarashadu ama waxbarashadu way education inta badan. education waxbarashadu is the passport, waa baasaboorka ama waxa weeye jawaazu safar waxa carabiga lagu yiraahdo. waa baasaboorka to the future ee mustaqbalka. baasaboorka waxaa loo isticmaalaa in wadan laga tago wadan kale lagu tago, waliba si amniya xorriyad leh wax walba oo arabtidna lagu fududeeyo. sidaa daraaddeed aqoontu is the passport, waa baasaboorka to the future ee mustaqbalka. wax walba mustaqbalka u baahan tahay waxaa lama huraana inaa aqoon u leedahay. for tomorrow biri belongs waxaa iskale ama waxaa iskale to those who prepare it, to those who kuwa prepare for it u diyaargarooba today. yacni biri waxaa iskale kuwa maanta u diyaargarooba. education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. okay, quote saddexaad ama xigashada saddexaad waxaa la yidhahdaa if you don't go after what you want, haddii aadan yacni dabagelin ama raad raacin ama daba ordin waxa aad doonaysid, you would never have it, weligaa ma heli doontid. if you don't ask, haddii aadan weydiin, the answer is always no, jawaabtu mar walba waa maya. if you don't step forward, haddii aadan horey u tilaabsan, tallaabo haddaadan horey u qaadin, you are always in the same place, weligaa waxaad joogaysaa hal meel. noora gabar liyadaa askar marka waxay tiri if you don't go after what you want, you would never have it. if you don't ask, the answer is always no. if you don't step forward, you are always in the same place. okay, quote-kas afraad so many of our dreams at first seem impossible, then they seem improbable, and then when we summoned the will, they soon became inevitable. okay, Christopher Niniadaskar wuxuu leeyahay so many of our dreams, in badan oo ka mid a riyooyinkeena waa hamiga iyo himilooyinka iyo didiilada aan leenahay. at first seem waxa ay ugu horreyn u muuqdaan impossible, waxaan suurtagal ahayn. then they seem haddana waxa isku bedelaan oo u muuqdaan improbable, waxaan xaqiiqba ahayn oo run ahayn oo khiyaaliya. and then kadib when we summon the will, markii aanun
يعني rajada iyo himilada u yeelno will waa rajada summon waa u yeerid when we summon the will markii aan rajada u yeelno yani qofka markuu hamigiisa iyo rajada uu waxa weeye yiraahdo rajo aan leeyahay they soon became inevitable isla markiiba waxay noqdaan waxaan lama huraan ahayn waxaan laga maarmi karin bay noqdaan. So many of our dreams at first seem impossible, then they seem improbable, and then when we summon the will, they soon became inevitable. Christopher. Okay. Xigashada shanaad waxay leedahay successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their potential. John Maxwell Pascal successful dadka guuleystay and unsuccessful iyo dadka guul daraystay ee aan nolosha heer ka gaarin successful and unsuccessful people dadka guuleystay iyo kuwa guul daraystay do not vary greatly in their abilities awoodahooda aad uguma kala duwana yani farqi aad u weyn oo wax weey la dareemi karayo uma dhaxeeyo marka xagga awoodda laga eego yani indhihii dhagihii maqalkii afkii يعني أدميه وحول كان ليه بو كان ليه يعني كوما مقدان كلا دوانش آد بحسن يعني كمان حركس لبض they vary waxay ku kala duwan vary waa maxay kala duwanaansho they vary waxay ku kala duwan in their desires hamiga iyo himilada iyo jacaylka jamashada waxa way ay u qabaan to their potential to reach si ay u gaaraan their potential يعني waxyaabaha macquulka u ah qof walba waxa jira wax macquul u ah oo suurtagal u ah inuu sameeyo marka qofkaas sidii u gaaro waxa uu u baahan yahay desire wax la yiraahdo ama jamash rabitaan buu u baahan yahay so we successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities they vary in their desires to reach their potential. John Maxwell ayaa iskale. Okay xigashada lixaad wuxuu leeyahay take up one idea waxa diirada saada take up inta badan waxa loo yaqaan in wax attention ama diirada la saaro take up one idea waxa diirada saada hal fikrad make that one idea halka fikrad waxa ka sameeysa your life noloshaada think of it ka fikir dream of it kuriyo live on that idea riyadaas ku noolow fikradaas ku noolow let the brain maskaxda u ogolow muscles murqaha u ogolow nerves nerfayaasha jirkaaga u ogolow every part of your body qayb walba oo jirkaaga kamid u ogolow be full of that idea inay ka buuxsanto fikradaas macnaha qayb walba oo jirkaaga kamid ka buuxi and just leave every other idea alone fikrad walba oo kalena wax walba fikrada oo soo harayna ee macnaha kuwa kala ah iska daa. This is the way to success. Tani waa wadada guush macnaha waxa weeye wax diirada saar hadii aad tiraahdo halkan briba waxbaan ka qabanaya halkan waxbaan ka qabanaya halkan waxbaan ka qabanaya halkan waxbaan ka qabanaya meesha dhexdooda ayaa ku dhumasa Soomaalidu waxay dhihi jirtay hash labada geel jecel laba gabadh dhexdood baa waraabuhu ku gooyamiyahay يعني laba gabadh dhexdood baa hash labada geel jecel yani kana ka daba orada waxa weeye laba gabadh dhexdood ama laba buuro dhexdood ayay ku dhintaan macnaha waraabuhu ku cuna sadraadeed waliga waxa focus ka saarda hal wax oo noloshaada muhiim ah waxaas wax walba oo yani awood walba aad leedahay sar take up one idea make that one idea your life think of it dream of it live on that idea let the brain muscles nerves every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. waxa iskale siwaamin. Okay xikmada toddobaad waa inta ugu dambeysay no one can go back and make a brand new start. Anyone can start from now and make a brand new end. Carl waxa isbuucu leeyahay inkastoo qofna can go back uusan dib u laaban karin and make a brand new start uusan bilow kow ka soo bilaabi karin. Anyone qof walba can start waxa uu ka bilaabi karaa from now hadda ayuu bilaabi karaa and make wuxuu samayn karaa a brand new ending bilow dhammaad cusub. Though inkastoo no one idina can go back aysan dib u laaban karin and make a brand new start aysan bilow cusubna soo samayn karin. Anyone mid qof walba ama cid walba can start from now hadda ayay bilaabi karaan and make waxa ay samayn karaan
brand new ending, dhammaad cusub. Okay, sidaa daraadeed maadaama aan dhamadkii xigashooyinka iyo xikmadda maanta aanu nimid, waxaan rabaa inaan la wadaago haddii lahaydmo. kow horta waxaan rabaa inaan ka codsado inaad kanaalka hadda ku cusubtiin kusoo biirtaan. haddii aa horey noola joogteenna fadlan ha ka bakhaylina inaa waxaweye like saartaan, sidoo kale waxaweye commentiga kusoo qadhaan wixii faalla ah oo qabtaan. haddii aad dad kale la jeceshiin casharkan inay ka faa'iidaan oo dhiirigelin iyo waxaweye hididiilo iyo himilo ay ka qaadaanna, fadlan khayrka waa laisla wadaagaaye la wadaag adigoo wanaag iyo waxaweye wax sheeg walaaltinimo u adeegsanay insha allah. casharkani waxaweye runtii wuxuu leeyahay, waxaa la yidhahdaa gaariga waxaa la siiyaa shidaal, qofka bini'aadankana waxaa la siiyaa cunto si uu awood u yeesho iyo tamar. gaariga day shidaalka wuxuu samaynaya wuu gubayaa, kadibna awood iyo tamar buu ka dhalanaya. qofka bini'aadankana cuntadii la siiyey wuu gubayaa, yacni chemicals baa calooshaada ka dhaca. chemicaladaas waxa ay samaynayaan oo waxay gubayaan cuntadii aa cuntay si ay uga soo saaraan energy. sidaasoo kale yacni inspirationka waxa la yihahdaa ama dhiirigelintu waxa ay gubtaa yacni caajisnimada, waxaweye walwalka, fakarka, waxaweye waxa ayna abuurtaa tamar ah inay qofku horey u wado, horey u riixdo. saa daraadeed waxaan isku daynaa inagoo casharkii wadna inaan waxaweye dhiirigelintiina in la wadaagno. idinkana waxaweye waxaan rajinaya inaad ka faa'iidi doontaan, waxaweye asxaabtiina in la wadaagi doontaan. casharka maanta intaas ku egyahay. intii casharkan cashar la mida aanu ku kulmi doono, nabad iyo nooli kulanti. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.